walaal maanta dareenkayga iyo farxadayda lama soo koobi karo muwaadin reer Somaliland baan ahay Somaliland oo dalkayga oo 34 sanadood in ka badan ictiraaf raadinaysay cadaadis badanna uu ku socday ayaa ictiraaf heshay marka aad iyo aad baan u faraxsanahay dadka reer Somaliland guud ahaan meel kasta joogan waxaan leeyahay farxad iyo baraare iyo bashbash iyo nabadgelyo ku dabaaldega amnigiinana ilaashada dawladda Somaliland oo 34 sano in ka badan san horabo sheegay ictiraaf raadinaysay maanta waxay noo tahay guul weyn noo tahay waxaad arkaysaa wax weey dadkii shacabka reer Somaliland oo ilaa xalay dabaaldegaya waxaan u dabaaldegayaan guusha iyo ictiraafka iyo aqoonsiga hay dawladaha waaweyn adduunku hadda intoodii kalena ay aqoonsanayso Israa'iil ugu horeysay imka ku dhawaaqay anigu markaa shacabka reer Somaliland fariin baan halkan ka faraya waxaan leeyahay sidoo hore ma ahaanayso cadow far badan baynu yeelanaynaa haddaynu reer Somaliland qaar badan oo inaan cadow arkin ba cadow inagu noqonaya oo cadaawadeena ka shaqeynaya sida awgeed qof kasta oo muwaadin oo reer Somaliland meel kasta joogo waa inuu amniga ka shaqeeyaa waa inuu laamaha amniga la shaqeeyaa waa inuu cadow gudaha iyo ka dibadaba uu wax weyn indha gaar ku eega qof kasta waa inuu halkiisa booliis ku noqdaa oo nabad sugid ku noqdaa oo sirdoon ku noqdaa oo ku shaqeeya amniga ka shaqeeya anigu nin weyno baanahay oo siyaasiya abwaan Kennedy ba magacayga la yiraahdaa ummadda reer Somaliland meel kasta joogto waxaana kamid ah horta dadka qadiyada Somaliland sida gaarka ugu dhaqdhaqaaqa hadiyo goorana markastana u taagan inuu wax weey dalkiisa difaaco sida awgeed qof kasta reer Somaliland waxaan leeyahay war farxadu yaana inaga badbadane aynu faraxna oo wax weey dabaaldegno laakiin aynu ammaankeena ilaashan waa inuu wax weey indha gaar ku eegno cid kasta oo dalkeena cadow ku ah waddankana horumar badan baa la gaariyaa barwaaqa la gaariyaa wax weey inka Israa'iil baa inaa qoostay waynu ma hadnaqana dawladda Israa'iil wax weey isku diin ma nihiin oo dad kala oo dad baan arkayay teele migraysa yuhuud baa raacday war yuhuud ma aan raacin anagu dad ma aan raacin walaal laakiin wax weeyaan adduunka interest baa ka dhaxeeya qadiyad ciidda wax noo tartay maanta dad Somaliland ay wax noo tartay wax lagu taageerta waa anaguna taageerina dawladaha caalamkana waxaan rajaynayaa inay dhawaan tusbax furtay noqon doono migraysa ictiraafkaasiyo dhammaan ku dhawaaqi doono aad iyo aad baan u salaamayaa dadka reer Somaliland nabadgelyada